wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa maanta gaari noociisu yahay Land Cruiser ku wareejisay maamulka jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool. Baabuurkaasi oo wasaaraddu kala wareegtay hay'adda DRC. Munaasabad lagu kala wareegay gaarigani uu ka qabsoontay xarunta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, madaxa hay'adda DRC ee Soomaaliland iyo maamulka sare ee jaamacadda Nugaal. Ugu horreyn waxaa munaasabadani ka hadlay agaasimaha waaxda isduwidda ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, mudane فتح سلطان آذن وحنا هذا الذي سي كم ذا ما أنت تاريخ تطحي شيء لا تكبيش كوباد لبده يكون يكوي لبعتنك وحاجة شوجا وسعر تقرشنته يهرمان تقرن كوا جامني وسيركوحين كوسعر تقرشنته يهرمان تقرن كام بدل عبد القادر عمر شامع هاي DRC وهو جامني كانتر دايركتور كيو يو فقاسه يصدق على جامعة النجارية وكشوجان مسؤولين من التنسة وأحمد حسن عسو كمدي هاي مناسبة waxa weeyaan munaasabad lagu wareejinayo gaari ay ku deeqday hay'adda DRC kaas oo lagu wareejin doono wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ku wareejin doonto jaamacadda Nugaaleed. Madaxa hay'adda DRC ee Soomaaliland ayaa bogaadiyay wada shaqaynta fiican ee ka dhaxaysa wasaaradda iyo hay'adda DRC sidoo kalena mas'uulku waxa uu sheegay in wax badan ka tari doono gaarigani baahiyaha asaasiga ee jaamacadda Nugaal. As DRC we are very happy that we are working with the ministry. We look forward to keep on working together to ensure that we develop effective partnerships to support our people in Somaliland. And today's ceremony is just to support the Nugaal University in what you do by handing over this vehicle. And I hope that it will go a long way to support the work which you do. Thank you so much and all the best. Thank you. أحمد حسن عسوي وكترسن مامورك جامعة النجال وقاريني كلا وريجي وزارة قرشنتي ومرت قرنك Soomaaliland أيوة جمعت عليه مامورك وزارة هيئة DRC وحنا بلن قاضي إنه شقين دونو قاريني باهيها أساسية مدنها جامعة النجال. وزارة قرشنتها Soomaaliland قرنك سيدها بسميلة أي وجور هيان يعني أرمها بالشدة ودنك أي وتحجلين يان إن أي نقدان هيدا isku filan waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa hay'adda DRC oo jaamacadda Nugaalna muddo dheer ay soo wada shaqeynayeen ilaa iminkana ay wada shaqeeyaan oo ay hawlwadaag yihiin hay'adda DRC sidoo kale waxay ka wadaa gobolka Sool mashaariic aad u fara badan oo runtii ammaan mudan oo ay ku ay jaamacadda Nugaal la haysaan ay kamid yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gaarigan maanta jaamacadda lagu soo wareejiyana waxaan u arkaynaa waxtar weyn oo jaamacadda loo qabtay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu u shaqeeyo danaha jaamacadda iyo danaha caruurta Soomaaliland ee wax baranaysa inaanu ugu shaqeyno ayaanu anaguna ballan qaadaynaa. gabagabadii munaasabadan waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo kala wareegay hay'adda gaarigani kuna wareejiyay maamulka jaamacadda Nugaal waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta farxad weyn bay tahay in aanu ka gudoono baabuurkan ay hay'adda DRC baabuurkaas oo jaamacadda Nugaal aanu gudoonsinayno waxa aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa madaxda hay'adda DRC iyadu markii mashruuci ay hawshan ku waday ay dhamaysay sida sharciguna ahaa ku soo wareejisay wasaaradda qorsheynta waxa kale oo aan doonayaa halkan ka sheego in hay'adaha kale ee mashaariicda dalka Soomaaliland civil society-ga NGO-yada iyo hay'adaha dawladda waa markay mashaariicda caynkana ay hawl ku wadaan ay dhameeyaan in suu sharcigu yahay ay ku soo wareejiyaan wasaaradda qorsheynta taasoo noqonaysa hanti ay qaranku u yeelanayo waxaan mar labaad mahad ugu celinayaa madaxa country director-ka hay'adda DRC halkan u jooga maanta nagu wareejinaya baabuurka annaguna waxaan maanta ku wareejinaynaa أحمد حسن عسوي ويسوي كالصعدة جامعة نوغال وحارون هالكلمة كوية شنية أحمد حسن باور كاين ويرجسي هذا DRC وحارون شعلها إلى نوغال قدوتهم